وإسلام داتين مقعي قوي أم حقا دقدا ونسلي يلا يتبات مقال كين حق سبسي فلوج يشقو وحكا لو إذن هيا وركله أما أخبار كلو فرحلة وإذن كفر حدونتو وجدا وماينس 15 جرادر معناتها برانك أتاقناي ودنك سويدن خيبا كميدا وماينس 50 جرادر وعيار عيار معان كورنتود ميلا قار وإيكا تكتي لاميدا قار باورت اسكا تاقين ومرقاقي كران دي عدي ولي كنال كيغي سبسكرايب ساني وحكو لها سبسكرايب دي داو شو عن waxaa ma dukaanka aba qaariga dhamaada ka soo iibsanaya suuqa maanta maaragtay dad bulsho badanaa joogto xasnaa qabow badanaa jir dad ma soo baxaya laakiin banaadamku wax celi kara ma leh saaxiib dad badan ayaa suuqa buuxa saaxiib qabowga Sweden ka dhacay maaragtay wax kala waaya wallahi wax yar ku banaanka taagnaa alaabta gaariga gashanay waxa uu egtaa ku dhac gacmeey inay qalaleen ma fahmino waayo waa -15 waaye laakiin waxa uu egtahay oo kala maarkado waxa uu egtahay inay tahay -25 -30 camal inay tahay uu egtaa ma fahmino yani qabowga jira aawgiisa ma fahamtay magaalo waxa jirta ama tuuleer la Elvis B oo ku taalo waqooyiga fog ee Sweden -51 ayaa maxalla isbuuci hadda la dhaafay maarkano laga diiwaan galiyay oo taasoo kaliftay in korontadii ay tagto tareemadii ay dhahan anaga ma soo karno basaskii maxalla dhaxal dhoo ma jirto wax bas lahay ma jiro saaxiib yani way ahaatay fahmino qawow dartiis waayo laamiga qawow zaid uu noqonaa wax walba hadaa ku shubto wax aa ka tareysa askeer ma fahamtay sidaas darteed tuuladaas yeeto dukaamadii maxalla ii sheeg yaa maana -51 waa qof banaanka soo baxaya ma le brother qawowgan hadda winterkan ka jira Sweden sida ma arkino dadka cimilada bee'ada ku taqasusay oo sheegayaan 20 sano ka hor ma aragtay 1999 ka ayaa ugu dambeysay Sweden qawow sidaan oo kale inay noqoto oo yani hadda magaalada deganaa waa xeebta ma aragtay West Coast Iran xeebtan ama deegaankaaneetu waa deegaan winterkiisa doo waaw oo dhow wuxuu gaaraa -10 haddii kale +5 0 waxay meelahaas waa fahmina yani qawow saas waalan maaha laakiin hadda isbuuc la soo dhaaf wuxuu ahaa waali ayuu ahaa ma fahamtay waqooyiga Sweden tuulooyinka fog waxaa laga diiwaan gelinaa meelaha qaar -45 -51 tuulo laga diiwaan geliyaa jirto tuuladaas wax dhaqaaqaya habeeraatay ma jirto korontadii way istaagtay yani korontada way shaqayn weysay way go'day tareemada ma jiraan basaska ma jiraan hor waxaa idinkaga sheekeeya moogta in gaariga adigoo guriga ku jirta sii kacsinaysto oo kusii kulaanaya ad gaariga waa kana baruda waxaas xabad maan oo kacsinayso ma jeedid 10 daqiiqo ka hor akiciyey albaabadiisna way xiriyeen leerarkiisna way dansiyiin 10 daqiiqo ka hor soo kicine asoo kulaa u soo galaysaa ad waxaa waaye sheekeen 5 galabnimo iyo 43 daqiiqo hadda la shaqo tagayaa عاودن soo shaqeysanayaa ilaa waa ka bari ilaa 5 subaxnimo adii 5 ilaa 5 kale haduu ilaahay nafta ugu gaarsiiyo waaya xalay saas suuqa ma kala kacsaneen marka insha Allah caawa waxaan rajeynayaa inay ka wanaagsanaato oo suuqa caawa oo noqdo suuq shidan kadibna waxaan kaga sheekeynaa warka farxadda leh aadin hayo teeda kale waqtigan oo kale marka gaari waday sidoo kale markino meesha rabta joog xilligan oo kale marka lagu jiro -grader ay joogu yahay waxa fiican baabuurta ka horeysa ma aragtay ina masaafo idin dhaxayso ama maxalla distance idin dhaxay in case hadii gaariga si degdeg ah ku istaago adiguna degdeg ah ku istaagto break uu jitamaya waa dogtahay aad haysatid maxalla space oo maxalla break kugu jita ma fahantay hadday wadada 100 tahay 100 mitir ka fogo gaarigaas hadday wadada 50 tahay
adiga 40 ilaa 50 mitir intii u dhaxaysa maaragtay ka fogo waayo waxaa hadhow tiiraanaya riskiga ah inaa gaarigaas aad ku dhacdo ama adiga gadaal lagaaga dhaco so adiga waxaa kaa mas-uuliyadda ay kaa saaran tahay oo keliya gaariga kaa horeeya inaa space siisid gaariga kaa dambeeya asiga mas-uuliyaddiisa tahay inuu adiga space ku siiyo waayo sababtaa sidaas kuu leeyahayna waxay tahay hadhowti kuwa caymiska maaragtay markaa shilka gashid waxaad diiwaangelinaya gaarigaaga noo shil gale caymiska la xiriiraysaa caymiska waxay fiirinayaan oo keliya gaarigaa distance ma kaysta gaariga ka horeeyo hadday jawaabta may noqoto mas-uuliyadda adigaa leh waayo markaa maxaa la sheegay lisinka qaadinaysid waa lagugu baraya mafaat inaad distance aad siisid gaariga kaa horeeyo haddii aad distance aadan siinaa gaarigaa shilka aad dabada kaga dhacdid adigaa ka mas-uula wixii meeshaas ka dhacay hadda qofkii ugu horeeyaa imaaday albaabkaas ayuu ka soo baxayaa qofka waxaa geenaa magaalada dhexdeeda 12 daqiiqo ayaa wadi doonaa caawa saas ayaa u shaqayn doonaa hadda waxaa u socdaa qofkii labaad qofka waxaa ka soo qaadaa meel xaafadan dhexdeeda wax 400 mitir ka yar ayuu hadda ii jiraa laakiin markii hore wuxuu ii jiray 4 kilomitir haddana waxaa u socdaa qofkii saddexaad caawa doonaya qofkan wuxuu ii jiraa meel 600 kilomitir u jirta teeda kale meeshan webi ayaa mara ma fahanteen meeshan webi ayaa mara webigaan dhagax ayuu noqday waayo waa uu qaboobay biyuhuna way ay qaboobeen hadhowti haddii aad fursad u hela waa idin tusinaya ma fahanteen dhagax waa ku dul lugeyn kartaa yacni waa ku dul socon kartaa qofkan waxaa ka soo doonayaa meel cariiri ah maalinta cad waddadaan ma mari kartid ma fahamtid waayo dadka lugeynaya ayaa ku badan laakiin hadda maadaama ay habeen tahay dad badan ma socdaan hal qof laba qof camal ah waddada maraayo gabadhana xaggaas hore gaarigaas cad agtiisa ayay taagan tahay waxaana geenaa xaafad lahaayo bartilan hadda qofkii waa keena xaafadiisa waxa u noqonaa magaalada hadda waxaa jooga xaafad lahaayo bartila wuxuu uga qaadatay qofkaan inaa keenay 13 daqiiqo waayo highwaygaa soo qaatay laakiin xaafadaha markii lasoo gala ma aragtay laamiga gaariga maartay oo kaa taraaraxaasa dirk oo dhaan fahmino waa dhulka dhan waa dhalo haddaadan maxaa la aayir aadan u soconin gaarigu kaa fara baxsanayaa soo marka hadda waxaa sameynaa waxay tahay magaalada ayaa ku noqonayaa intaa magaalada usii socdan haddii qof uu ii soo dhaco ama maxaa la sheegay dalab aa helo waana arkaynaa hadda waxaa u socdaa qofkii afraad waxaa ka dhex qaadaya isla xaafadda bartila meeshaan waxay leedahay ii sheeg centrum weyn waa meeshaan aan ka qaadaya intaana highwayga qabsan oo qofkan soo dalbaday nasiib uu lahay haddana waxaa u socdaa qofkii shanaad qofkan waxaa ka doonayaa xaafadeeda agteeda waxay ii jirtaa 3 kilomitir iyo 600 mitir soo qofkan ayaa soo qaadaa magaalada ayaa geenaa cabaar ayaa wadi doonaa عاملها وقتك إنه واحد بدن هبين محل سقبر إنه تاي لكن سيدار كرتا موجودة وسقال يتوقع أفرتن إلى دقيقة أما تضودي في دنيمو أفرتن إلى دقيقة واي جوجنا سيدان أيوب إجاي عدنا قف كلا أو سعدا قف كان حق سوق هذا حافظان دحية وحقينا ميل ده يانتوريت أو سنترال كمجال أما ميلا هبين كل وعوي ميل كميده هواي قف كان أيام ماشى سكينة suuq caaw inuu soo wax jir ahaan waxa ku cadeynaysa mataqaana meeshaan ay wixii ahaa jirto waqtigan oo kale markii la joogo hadda waxa waaye 2 saac ama 8 fiidnimo iyo 38 daqiiqo waaye dad ma joogo mujida waa cidlo iyada dhan taas wuxuu ku cadeynaysaa suuqa inuu saneen caawa wax jira ma ahan waayo meeshaan bulshadeedu way badnaa jirtay ma fahmino inaa meeshaan aad ka tilaabsato ama maxaa laaw meesha hadda naagta goonaysa markino dad badan ayaa gooy jiray laakiin hadda suuq inuu soo jiro taas ku cadeynayso هذا كلام جدا ماشان بار واي الباب بدأ اسكو لابن taasna macnaheedu waxay tahay dad badan magaalka ma joogo aad waxay kadib gaariga meel dhigana waxay tusinayaa webiga sida uu dhagax u noqdo ayaa idin tusinayaa kanaalka magaalada dhexmaraya waatana magaalada waa taasa xagga tareemada ayaa marayo kanaalkan waa kana sida u jeedin waa baraf caadi ah waxa isku dayaa inaa wax ku dhex tuuro si aad waragtaan fiira kana ku tuura kam jida والله سو مجدد
أوجد ما عندنا فير وشانا كتورة يا والله موجود فير يا أوجد سمان وداقح عادي هدارت لو قدر سكرتا dhinac kale u talaabsan kartaa meelaha qaar Sweden harooyin waxaa jira sidaan oo kale ah adkaan kanaal waa laakiin harooyin waxaa jira saaxiib caadi baraf u noqdo dadka ay ku dul ciyaaraan xeegada barafka lagu dul ciyaaro wixii doono lagu sameystan faamino tan waa kanaalka magaalada dhexdeeda waaye hadda marka waxaa idinkaga sheekeynaa waxa farxadda leh oo aadinahaaya idinkaga sheekeynaya sidaa ogsantiin aniga waxaad isweydiinaysiin moogta maxaa waaye wayaama wuxuu noo sheegayo farxad lacaawa noo sheegayo wax farxad leh wax weyn maahan waa maxaa la ii sheeg muuqaalkeena ugu dambeeya hadda asoo dhigaaye waxaa jirta waxaan idiin dhahay maxaa la ii sheeg bilowga sanadka cusub imtixaan ayaa leeyahay oo maxaa la ii sheegeen waxaan rajeynaya inay noqoto guusha ugu horeysa ama maxaa la ii sheeg hadafka ugu horeeya ee aan rab inaan xaqiijiyo 2024 inay tahay inaad traaga lisinkiisa soo qaato soo marka taas ayaa dhacday oo lisinka traaga ayaa soo qaatay oo bishii saddexda hadda saddexda bishii imtixaanka ayaa lahay imtixaanka ayaa ku soo baasay imtixaankaasna wuxuu u qaybsanaa laba qayb qaybta koowaad waxay ahayd gaari kaxeynta oo darawalnimada ah qaybta labaadna waxay ahayd badqabka gaariga oo imtixaan lagugu marinayo yani imtixaan afka su'aalo laga weydiinayo soo imtixaanka darawalnimada oo ku soo baasay imtixaanka oo ku soo dhacayna waxa waaye ii sheeg imtixaanka badqabka gaariga ama safety control wax loo imtixaankaas ayaa ku soo dhacay soo marka waxa dhan waxa ii haray hadda yani gaariga waa kaxeyn karaa ma fahat laakiin ma ku shaqeyn karin soo marka ad wax yaar waxay tahay inaad soo qaato safety controlkaas inaad soo dhameeyo asina wuxuu balansiyaa insha Allah bishan gudaheeda waxaa kaloo jira imtixaan kale oo la dhahayo ii sheegeen EQB waxaa loo soo gaabay waxay tahay irkas competence for Allah ma fahanteen taasna waxaa waaye warqadda aad ku shaqeyn kartid yani track inaa ahaatid ma fahamino yani darawalnimo ama adi aad lahaatid ama shirkadda aad ugu shaqeysid waa baasha cadeynaysa inaad gaarigaas aad ku shaqeyn kartid oo yani traafiga aad ku wadi kartid ma fahanteen soo marka taasna idin imtixaan gooniya loo galaa imtixaankaas asaga insha Allah bisha dhamaadkeeda ayaa sameynaa waxaan jeclaystay in aan idin la wadaago wixii ugu soo kordhay iyo wixii aan xaqiijiyay waayo in muddo ay soo socotay waxa u maleynaa waxaa bilaabay geediga maarkan inaa track lisinkiisa soo qaato waxa u maleynaa waxaa bilaabay bishii 8aad ama bishii 10aad meelahaas ayaa bilaabay kulay muuqaaladeedu way ku jirtaa markii kuwa meesha tagay kadib imtixaan teoriya galay oo ku soo baasay imtixaankana galay oo ku soo baasay marka imtixaanada wax dhan aan soo dhameeyno waxa sameyn doona insha Allah muuqaal aan uga hadli doono qiimihii ugu baxay ilaa intee yani ugu qaadatay inaa qaato iyo qiimaha ugu baxay wax dhan hal mar aan muuqaal u sameynaya insha Allah xarjeena idinkana maxaa la sheeg ina wax badan maxaa la sheeg ku qanacdaan teeda kale YouTube-kayga yani ma ahan yani YouTube qiyaali ma fahmino waxa aan ku soo gudbinaa YouTube-kayga waa wax aarawa dadka dhalinyarada asaageega ama aniga yar in maxaa la dhahaa ii sheeg ee arkaan reality meeshan yaala wadanka aan ku noolaa ama qurbaha meel walba aad joogtid reality dhabta aan inaa ku tusaaro aan fahmino aan waxba ku qarqarinin dad baa yani sokor iyo malab ku marmarinayo ma fahad laakiin ma ku marinayo saaxib qaleelkeeda kugu siinaya raganimadaada uga soo baxa xarjeena inaa wax uun ka faa'iiday caawa suuqa wuxuu ahay mataqaana wax jira muusaneen saacad meeqsac waa fiir waa 6 ساعة إلى 24 دقيقة فمنو يعني والله بيتون كي هبين 24 دقيقة وقت غير يا قريه وصعدا قرشها ما تصبح أنا وحوي إلى عشان تصبحني مناش قرصته لكن صاحب سوقه وحوي متخانة زيرو يعني كوبي تون كهبين مو إلا حتى حلقة فيا خاذي خاصة وحوي يعني شذال كاي قوي سو كليم فاتي صبرك وحنا براد أنت ما لا يعني وضفر لا مارت أنا قريه إسكتجا إسكسح يا إيدات فاتي صبرك سوق عاوم ما وصل شدنين شالي حتى أو جمعة سوق حتى أساس موصل وشدنين لكن عاوة واو دام إن شاء الله بحرجينا أسبوع سو صعدة محلة ويكنيك دمبي إنه هذا مد سيدا ما أنت ويكنيك إنه هاي مد داما ugu dambeyn waxaan imaaday gurigayga waxaan rajeynaa muuqaalka maanta inaad ka heshay haddii aad weli kanaalkayga subscribe saar waxaa ku leeyahay subscribe dheh intaa muuqaala mid isku arki doono waxaad leeyahay sidaas iyo amaan Allah